madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo weli ku sugan magaalada Davos ee dalka Switzerland ayaa wareysi qoto dheer siiyay wariyaha caanka ah ee John Defterius. Wariyaha ayaa ugu horreyn madaxweynaha weydiiyay anigoo atiftiraha suuqyada soo koraya mar walba aad ayaan u xiiseyn jiray ilaa aan fursad u helay sanadkii hore shirkii World Government Summit ee Dubai inaan la yeesho kulan madaxweynaha Soomaaliland. wax badan ayaa dhacay sanadkan gudihiisa waxaan leenahay maalgeliyaha tiirka u ah dalkaas oo ah DB World waanan ka hadli doonaa arrintaas. aqoonsiga ay Israa'iil siisay Soomaaliland wuxuu noqday isbedel weyn oo dhinaca juqraafi siyaasadeedka ah. madaxweynuhu wuxuu halkan joogay isagoo shalay bandhig ka sameeyay madaxweynaha Israa'iil iyo Eric Trump hortooda. aad bay soo dhaweeyeen laakiin maanta dunidu waxay ku jirtaa arrin xasaasi ah sababtoo ah khalkhal badan ayaa jira. silsiladihii sahayda ayaa burburay waxaan aragnay wixii ka dhacay badda cas iyo meelo kala mid ah geeska Afrika. Soomaaliland waxay gooni u taagday tan iyo 1991kii haddana waxaa aqoonsaday Israa'iil. haddaba maxaa dhici kara 2026 anigoo hore u ahaa tiftiraha suuqyada soo koraya si gaar ah ayaan u danaynayaa fursadaha maalgashi markaa halkaas ayaan u badnaan doonaa. laakiin mudane madaxweyne haddii aadan ka xumaan waxaan hayaa 4 ama 5 su'aalood oo juqraafi siyaasadeedka la xidhiidha. marka la eego aqoonsiga Israa'iil maxay kula tahay in uu u leeyahay marxalad muhiim ah? sidoo kale joogitaankaaga Davos iyo soo bandhigidda aad samaysay ma u aragtaa tani inay wax weyn Soomaaliland u tahay? marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadka qolka ku jira kuwa aan aqoon waxaan ka yimid Soomaaliland dalka ugu cusub adduunka kaasoo helay aqoonsi rasmi ah oo ay siisay Israa'iil 26 Disembar. waxaan u malaynayaa in wax badan ay isbedeleen kadib 26 Disembar 2025 sababtoo ah Somaliland hadda waa dal qayb ahaan la aqoonsaday. Somaliland waa dal nabdoon sharci ku dhaqma una diyaara maalgashi. waxaan aaminsanahay in kuwa danaynaya inay maalgeliyaan Somaliland ay heli doonaan fursadaha ugu fiican sida kuwii halista qaatay 30 sano ka hor ee maalgashaday Dubai, Rwanda ama Vietnam. maanta waxaan haysanaa isla fursaddii. Somaliland waxay noqon kartaa meel ka wanaagsan dalalkaasaan soo sheegay sababtoo ah waxaan leenahay khayraad. waxaan nahay dal leh khayraadka beeraha, xoolaha, macdanta, dalxiiska, madadaalada, khayraadka badda, bangiyada iyo caymiska. markaa fursad waliba waa ay ka jirtaa Somaliland. qof waliba waa uu og yahay inaan soo dhaweynayno maalgashi bilaayiin dollar ah oo Somaliland lagu sameeyo. waxaan u malaynayaa inaad heli doontaan isla fursaddii ay heleen kuwii danaynayay Rwanda, Dubai ama Vietnam. waxaan rabaa inaan si degdeg ah u raaciyo sababtoo ah dad badan oo qolka jooga wax badan kama yaqaanaan Somaliland marka laga reebo aqoonsiga Israa'iil ay aqoonsatay. anigoo aan taariikh ka hadlayn waxaa maanta Somaliland ka shaqeeya marka la eego shaqaynta dhinaca dowladnimada. waa maxay waaxyaha ugu muhiimsan ee aad doonayso inaad soo jiidataan ama ku soo jiidataan maalgashadayaasha? waxaan odhan karaa waax kasta qofkii danaynaya waa u furan tahay, laakiin waaxaha ugu muhiimsan waa xoolaha. waxaan noqon karnaa kaydka hilibka adduunka. waxaan leenahay malaayiin xoolo ah. waxaan u dhoofinnaa oo keliya Sacuudi Arabiya xilliga xajka 3 ilaa 4 milyan oo neef. waxaan leenahay 850 kilomitir oo xeeba. dhammaan noocyada khayraadka badda ayaa jira. waxaan noqon karnaa dal dhoofiya khayraadka badda oo ay ku jiraan kalluunka. waxaan leenahay dhammaanba noocyada dekedaha ee ay danaynayaan dalal yaryar iyo kuwo waaweyn oo noqday dalal warshado leh.
waxaan dabooli karnaa baahida dal kastoo dunida ah marka laga hadlayo macdanta. Waxaan leenahay saliid, waxaan leenahay gaas, waxaan ku naallaa goob istaraatiijiya oo ku dhowaad 10% ganacsiga adduunka uu maro baddayada. Markaa dhinac walba waanu ku habboonnahay xagga maalgashiga. geeska Afrika waxaa ka jiray colaado sida aad og tahay. hal shay oo si gaar ah u muuqda ayaa si ah inaad aad u ilaaliseen nabadda. maxay yihiin tiirarka ama saldhigyada xasiloonidaas ka dhigay Soomaaliland mid soo dhaweyn karta maalgashadayaasha caalamiga? maxay yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah arrintaas mudane madaxweyne? dadkaygu dhaqan ahaan waxay leeyihiin hab maxalliya oo ay ku xalliyaan dhammaan arrimaha kana duwan dhinacyada kale ee gobolka. taasi waa sababta aan u nahay sidaan nahay. waxaan ku siinayaa tusaale. Soomaaliya waxay isku dayeen inay qabtaan shirar 10 shir iyo in ka badan shirar caalamiya si nabad loo helo. laakiin annaga nabadda waxaan ku dhisnay geed hoostii. xitaa uma baahnin inaan shirar ku qabanno howlal shirar oo aad u qurux badan. saa daraaddeed waxaan leenahay hannaan maxalliya oo lagu xalliyay khilaafaadka. waana sababta ay Somaliland u ahayd dal nabdoon kana duwan dhinacyada kale ee gobolka. waa arrin xiiso leh sababtoo ah muddo 10 sano ah ayaad u dhaqmayseen sidii dawlad dhammaystiran. ma hadda ayaad si cad ugu baaqaysaa hogaamiyaasha caalamka inay aqoonsadaan Somaliland? maxayse tahay rajada laga qabo arrintaas? waxaan u arkaa inay tani tahay fursad aan kula hadlo dhammaan hogaamiyaasha adduunka. waxaan nahay dal nabdoon, waxaan nahay dal dimuqraadiya, waxaan qabannaa doorashooyin kana duwan dhinacyada kale ee gobolka. Somaliland muddo ka badan 30 sano waxaa soo maray 6 madaxweyne. anigu waxaan ku imid doorasho bishii November ee sanadkii 2024. waxaan helay ku dhowaad 65% codadka. sidaa daraaddeed xil wareejin nabdoon waa arrin caadi ka ah dalkayaga kana duwan dhinacyada kale ee gobolka. gobollada qaar hal hogaamiye ayaa xilka jooga 30 sano ama ka badan. laakiin annaga waa Somaliland 4 ama 5 sano mar ayay doorasho dhacdaa, waana in aad tartantaa. hagaag ma hogaamiyaasha ayaad ugu baaqaysaan in ay idin aqoonsadaan 2026? ma u aragtaa mid macquul ah mudane madaxweyne? waxaan u malaynayaa in rajadayadu aanay ahayn in adduunka oo dhan uu aqoonsado Somaliland. qaar waan wada hadalnay, laakiin waxaan codsi u dirnay dhammaan hogaamiyaashu inay aqoonsadaan Somaliland sababtoo ah waxaan buuxinay dhammaan shuruudihii looga baahnaa in dal la noqdo. waxaa jira 2 siyaabood oo arrintan loo eegi karo. qaar waxay yidhaahdaan aqoonsigu wuxuu keeni karaa xasilooni dheeraad ah oo Afrika oo dhan ah, balse waxaa jira iska caabin iyo kuwa diidan. waa maxay dooda ka soo horjeeda ee sheegaysa in aqoonsigu keeni karo xasilooni ee aanu keeni karin qalalaase? waxaan u malaynayaa in dalal badan oo adduunka ka mid ahi ay xidhiidh la samaynayaan Somaliland inkastoo oo aanayna wada aqoonsan. waxaa ku jira Maraykanka, boqortooyada Ingiriiska, midowga Yurub iyo inta badan dalalka Carabta. sidaa daraaddeed qof waliba waa uu og yahay in Somaliland ay xasiloon tahay. marka la aqoonsadana waxay heli doontaa fiiro dheeraada iyo xasilooni badan. inkastoo dalalka qaar ay sheegayaan inay keeni karto qalalaase gobolka, Somaliland waxay noqon kartaa qodob xasilooni keena gobolka. aan ku weydiiyo mid kale, maxaad u malaynaysaa in aqoonsigu u noqon doono awood keenta xasilooni aragtidaada? sababtoo ah waxaanu qayb ka noqon doonaa go'aan qaadashada gobolka. waxaanu ku jirnaa badda cas, waxaanu leenahay wax ku biirin iyo iskaashi ku saabsan aagga badda cas iyo bariga Afrika. sidoo kale waxaanu la leenahay xidhiidh aad u wanaagsan dhammaan dalalka Carabta. hagaag waxaan u arkaa arrintan mid aad u xiiso badan. annagoo halkan joogno goobtan adigoo leh hami ah inaad ku biirto heshiiska Abraham Accord. maxaad u doonaysaan inaad sidaas samaysaan? maxaase taasi ay ka sheegaysaa dhinaca istiraatiijiyadda go'aankaas?
mabdi ahaan siyaasadda somalilan waa xasilooni iyo nabad hindisahanina asal ahaan waa mid nabadeed waxaa bilaabay madaxweyne trump annagu mabdi ahaan waan taageersannahay nabadda maadaama oo ay israa'ilna aqoonsatay annagoo ka jawaabayna hindisaha madaxweyne trump waxaan sidoo kale doonaynaa inaan ku biirno heshiisyada abraham waxaan isweydiinayaa wadahadalladan aad hadda la leedihiin maraykanka ma u aragtaa in maraykanku aqoonsan doono somalilan goor dhow ama mar dambeba waan rajaynayaa waxaan warqad u qoray dhammaan hogaamiyaasha adduunka 17kii May ee sanadkii hore waxaa ku jiray madaxweyne Trump saa daraaddeed waan rajaynayaa in maalin uu ka jawaabo codsiga dadka Somaliland ee aqoonsiga xagaag kuwa aan aqoonta u lahayn gobolka ee daraska Somaliland waa Ethiopia oo ah dal aan bad lahayn waa suuq ay ku nool yihiin 110 milyan oo qof waana dal si degdeg ah u koraya haddii aan u gudubno sanadaha soo socda maxaad u aragtaa suurtagalnimada aqoonsiga Somaliland iyo furitaanka fursadaha aad Ethiopia kaga caawin kartaan inay gaadho suuqyada caalamiga ah waxaan la leenahay xiriir aad u wanaagsan saaxiibtinimo iyo ixtiraamla Ethiopia oo ay ku jiraan iskaashi ganacsi iyo amni waxaan doonaynaa inaan kordhino ganacsiga iyo iskaashiga amni ee Ethiopia waxaan aaminsanahay in Ethiopia hadda u baahan tahay dekedo badan maadaama oo ay tahay dal si degdeg ah u koraya waxay isticmaali karaan Djibouti waxay isticmaali karaan Berbera welina waxay u baahan yihiin dekedo kale sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in aan la horumarino Ethiopia saadka dekedaha ganacsiga iyo dhaqaalaha si aan adeeg ugu fidino dalalka kale ee Afrika ee aan badda lahayn waa si fiican istiraatiiji ahaan dekeda Berbera waxay ku xirmaysaa badweynta Hindiya iyo badda cas maxay fursadaasi u siinaysaa Ethiopia marka la eego gaarsiinta dhoofinteeda suuqyada caalamiga ah waxaan garwaaqsannahay baahida Ethiopia ee marinbadeed waxaan isku dayi karnaa inaan la horumarino dekeda ganacsi marino iyo saadka kale Ethiopia waana naga diyaar inaan arrintaas kala hadalno Ethiopia waxaan rabaa inaan tusaale u soo qaadano maalgashigii ay samaysay DP World si loo muujiyo sida loo bixiyo amni dhaqaale iyo kormeer maalgashi iyo wixii dhacay tan iyo markii dekeda Berbera la horumariyay dekeda kaliya waxaa ka shaqeeya 1200 oo qof 60 shirkadood ayaa horay ugu jira aagga xorta ah ama free zone sida aan fahamsanahay 66 shirkadood ayaa safka ku jira 8 kalena waxa socda wada hadalkoodii sidee ayaad u aragtaa waay aragnimada DP World ee go'aankaas hore ay Somaliland ugu badheereen waxaan uga mahad celinayaa DP World go'aankii geesinimada lahaa ee ay ku maalgelisay sanadkii 2016 sidoo kale waxaan u mahad celinayaa shirkadda maalgelinta Ingiriiska oo hadda qayb ka ah saamiyada DP World tani waxay caddayn u tahay in Somaliland tahay meel lagu kalsoonaan karo nabdoon lalana ganacsan karo sidaa daraaddeed DP World waxay tusaale wanaagsan u tahay dhammaanba shirkadaha iyo maalgashadayaasha caalamiga annagoo kaashanayna DP World iyo Ethiopia waxaan doonaynaa inaan sii horumarino kaabayaal sida marino dekada ganacsi iyo xarumo kale kuwaasoo adeeg u fidin kara dalalka aan badda lahayn oo ay ku jirto Ethiopia si fiican su'aal kale oo aanan ku weydiinin saameyn intee leeg ayay dekadu ku yeelatay horumarka Somaliland marka la eego shaqo abuurka iyo dib u dhiska hadda waxaan eegaynaa dhoofin ku dhow 300 milyan sanadkii taasoo la qorsheynayo inay saddex laabanto oo gaadho 1 bilyan sanada 2035 saameyn noocee ah ayay taasi ku yeelanaysaa muwaadiniintaada dadkaygu waa dhalinyaro qiyaastii 70% waa dhalinyaro waxaanay u baahan yihiin shaqo keliya dekeda maaha oo hadda shaqaalaysiisa dhalinyaro badan balse mashaariicda kale
marinada iyo kaabayaashu waxay sidoo kale abuuri doonaan shaqooyin badan. haddaba maadaama aan weli si rasmi ah loo wada aqoonsan dalka, qaar waxay odhan karaan John Defterius waxaad arrintan ka dhigaysaa mid khatara, Somalilandna khatar baa ka jirta. Laakiin waa maxay tallaabooyinka maamul ee aad dejiseen si ay maanta u noqoto meel ammaan u ah maalgashiga iyada oo aan la sugin aqoonsi buuxa oo dalalka kale oo dhan laga wada helo? ka hor 26 Disembar waxaanu caddaynay inaanu nahay dal xasiloon, nabdoon, dimuqraadiya. hadda haddii aanu helno iskaashi caalami oo dheeraada, waxaan samayn karnaa wax ka wanaagsan wixii aan hore u samaynay. si aan u muujino Somaliland inay tahay meel lagu kalsoonaan karo, meel lala shuraakoobo, waanan caddayn karnaa. hore ayaan ugu caddaynay DP World iyo maalgashadayaal kale. waxaan Afrika ka soo warramay marar badan muddo 30 sano ah. mar walba waxaa jirtay dood ah in gargaar lagu horumarinayo Afrika, in barwaaqo la gaadho ay tahay in gargaar lagu tiirsanaado. laakiin adigu fikrad taa ka duwan ayaad qabtaa. ma la wadaagi kartaa dhegeystayaasha sababta aad u aaminsan tahay in aanay gargaar ahayn waxa koritaanka keena, balse uu yahay maalgashi? maxaa ka dambeeya fikraddaas? sida aad sheegtay, siyaasadayda iyo tan dowladdeedu ma aha mid gargaar ku tiirsan. waxay ku salaysan tahay iskaashi, ganacsi iyo maalgashi. sidaas ayaan u aragnaa in Somaliland mustaqbalka dhow ay noqon doonto dal horumaray. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aragtidaada gaarka ah ee joogitaanka Davos. maxay hogaamiyaasha ganacsigu kuu sheegeen? nala wadaag jawaab cad oo ay bixinayaan qaar ka mid ah madaxda shirkadaha aad halkan kula kulanteen ama la kulmi doontaan. Give us some honest feedback of what some of the CEOs are telling you about the opportunity. waxaan u arkaa tani inay fursad weyn u tahay aniga, dadkayga iyo dalkayga. joogitaanka Davos waxaan la kulannay ganacsato kala duwan, maalgashadayaal, milyaneero. waxaanan rajaynaynaa inaan Somaliland u samayno soo jiidasho weyn, gaar ahaana geeska Afrika oo wax yar ay ka yaqaaneen. hagaag, aan ku soo gabagabayna mawduucan. mudane madaxweyne, booqashadadan Davos waa mid taariikhi ah. bandhiga caalamiga ah ee aad hore uga samaysay Dubai, shirkii dowladaha adduunka, ayaan ognahay in si weyn laydinku soo dhaweeyey. haddana waa adigan Davos jooga. aragtidaada sidee 5 sano kadib dalku noqon karaa ayaad aaminsan tahay? rajadaydu waa in 5 sano gudahood Somaliland ay si rasmiya u aqoonsan doonto dunida inteeda kale. ma aha Israa'iil oo keliya. wakhtigaas waxaan yeelan doonaa fursado la mida dalalka kale ee hadda leh tindhooyinka. 5 sano kadib, after 5 years, I hope that Somaliland will have its own pavilion after 5 years in Davos.